labada lamaane ee social media iska bartay Jesteye Happy Ahmed ayaa lagu wadaa in ay ku aqalgalaan magaalada Beledweyne sida ay sheegeen maalin dhaweed ay ku tageen socdaal magaalada Beledweyne. fadlan muuqaalka like saar sidaad u aragto barnaamijkeena committee hoos inoo qor muuqaalkani signa share garee. waxaadi badiyo dhibkii waxaadi bartaaka weyn waxaadi badiyo dhibkii labadan lamaane ayaa isdaba socday ku dhawaad 3 bil gudahooda waxayna isla duwayeen muuqaalada ay soo geliyaan barta TikTok. haddii aad horay u maqashay laba qof isbartay social media sida imo WhatsApp nimbas yaa isguursaday, hadda waa kana waxa dhawaanahan ka dhawayn rabaan in ay midoobaan Jesteye Happy oo noqon doona labada lamaane ugu horeeyay ee TikTok iska barta oo isguursada. gabadhaani jaceylkooda ama wiilkaani Jesteye la yiraahdo ayaa jaceylkooda soo maray marxalado kala duwan. Jesteye xataa wuxuu jaray walaashiisa ku hooy ku aaba ah oo isla duubi jireen muuqaalada ee barta TikTok soo geliyaan markay isku dhaceen gabadhaani la yiraahdo Happy Ahmed. 2 bil ka hor waxaa guursatay gabar kale oo caan ka ah barta TikTok oo lagu magacaabi jiray ayuuna qurux oo ayadana meherkeeda boqolaal oo gram dahab ah meherkeeda ka dhigtay. meherada Soomaalida ayaa aad u soo badanaya in qaali laga dhigo, laakiin aroosadii ugu dambeeyay ayaa noqday in nikaaxa laga dhigo qiimo qaali ah, taasoo ka hor imaanaysa in qoyska sii jiro ama cimrigiisa raago u fiirso nikaax oo la badiyo qiimihiisa. waxaa soo degdega furiinka nikaaxa oo la qafiifiya guurkaasi waa uu barakoobaa. baryaha dambe waxaa aad u badan qoysas wada nool oo aan arrimaha qoyskooda ka wada hadli karin, kuwa u wada nool carruurta in ay wada korsadaan oo keliya ama aan kalsooni isku qabin. haddaba isfaham la'aanta noocaasi marka uu sii balaarto wuxuu horseedayaa qoyska dhisan in ay burburaan ay kala tagaan. fadlan gabadhay, nikaaxaada hadaa qaali ka dhigtid ama iska daysid nikaaxaada hadaa qaali ka dhigtid la soco in uu guurkaada uu soo degdegayo ama kala tegi kartaan waxaad samaysan israaf. laakiin guurka ama nikaaxa hadaad qafiifiso ama hoos u dhigto waxaa kor u kacaya guurkiina inuu barakoobo, cimrigiina raago, aan nolol fiicanna aad ku noolaataan. meeshaasna ay ka muuqato kalsooni aad u weyn. jaceylka qofka labada qof isjecel nikaaxa iskuma adkaya ama kama dhiyaan lacag aad u fara badan. nimankana ha fahmaan gabadhii nii weydiiso nikaax lacagaad aad u badan yihiin, la soco in ay rabto gabadhaasi lacagtaasi keliya aynan rabin jaceylkaada. qof ku jecel kuma kalifayo keliya wuxuu ku yiraahdaa intaad awoodo ama qiimo macquul ah ayuu ku sheegay, laakiin qiimo kor u kacsan gabadhii ku weydiisa nikaaxeeda ka dhig ku dhacdo. fadlan la soco in ay gabadhaasi jecel ay kugu qabin keliya ay rabto lacagtaasi. fadlan muuqaalka like saar, siina share garee, faaladaada hoos inuu soo qor. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanayso. wixii qalad naga dhacayna naga noqda ayaa idin leenahay. sidaas iyo nabadgelyo iyo barnaamij kale xiiso leh.